السلام عليكم كلنتي أبون داود يلي دي لهانتين بوحكو سودواتان قيبتي سدحي اللباتان هذا تحنيني أيان دران شكرا وحا قوري دكتور عبد الله الشيخ حسين هنتي وذاك قيبتنا وحيكو بلاميسا سيدان markii ay baxay asli sariirtii ay inta isku tuurtay fakar gashay iyadoo ka yaaban masayrka ayah waxay sariirta dusheeda galgalataba ugu dambaystii waxay go'aan kama dambays ah ku gaadhay in ay ayah ka hadho taladaas ay gaartayna ula tagto eedadeed Faadumo asli markii taxliil ay samaysay waxay garatay in ayah uusan noqon karin nin mustaqbalka lagu tashan karo waqtigii qadada ayay Faadumo u tagtay waxayna ku tiri eedo Faadumo aniga ayaan daraa dabada la isuray ninkan la saaxiibaba in buu yeesha intaanay hadalkii dhammayn ayaa Faadumo garatay in xiriirkii ayah iyo asli dhibaatooyin soo beegsadeen markaasay tiri bisinka iyo yaasiinka asli ma adiga iyo ayah ayaa la idin soo dhaxgalay bal ii waran maxaa dhacay weli eedo Faadumo intaan adduunyada joogay ayah oo kale ima soo marin cid uu marayna ma maqal wiilkii jalaqsanaa ee adii amaani jirtay waxa ku soo baxday jiro aan daawo lahayn oo la yiraahdo masayr wax kale ba iska daayo eedo yaabka la itusay wuxuu ka diday saaxiibkiis xirsi agaan asli ma ogtahay qarnigan aan joogno inaan la helayn nin cibka saliin ah aadna nin la'aan ku soo dhacaysid haddii aad tiraahdo nin aan in kaliya lahayn ayaan baadi goobaya midda kale aad baan uga xumahay arrinta ayah waayo maan doonay inaad isku xumaataan eedo macna anigu kumaan oran nin weli ah ayaan rabaa laakiin xulashadu weli waa ii furan tahay waxayna ila tahay in ninkaygii aanan weli helin allana waxa uu yiri dadaal waan kula jiraay ayah eedo ma aha inaan naftayda iyo mustaqbalkaygaba ku aamini karo midda kale meeqanin oo fiican oo gentleman ah ayaa dalka jooga miyaanan kuwaas heli karin waa runta eedo oo aanba kulama rabo kugu lamana taliyeen nin masayrlow ah oo harkiisa ka didaya sidaad ka warqabtidna masayrka waxaa keena kalsooni darro ninku marba haddii ku aaminsan yahay 100 nin haddii aad ku dhex jirto ama aad dhex gasho waa huba in aadan xumaato samaynayn eedo ayah waa iga yaabshay isagoon saddex ugu qabin buu sidaa iga hinaasaya muxuu samayn lahaa haddii uu ila aqal galo ilaahay waxaan ku mahadinayaa in uusan ayah guri dhex fadhiisin waayo makhabiye buu iga dhigi lahaa xorriyadda caadiga ahna buu iga qaadi lahaa eedo ninka agaan oo ruuxba ruux ay yihiin ka masayray maxay tahay barta caqiibo ee laga sugayaa Faadumo oo ka waaya aragsanayd asli had iyo jeerna u sheegi jirtay sheekooyin lukule ama la xidhiidha munaasabooyinka ay ka hadlayaan ama duruufta la soo gudboonaata ayaa waxay tiri asli sheekaba sheeko ayay keentaa waxa la yiri waaba waxa jiray nin taajir ah oo maal aad u tiro badan leh ninkaasi wuxuu guursaday gabadhii magaalada ugu quruxda badnayd wuxuu ahaa nin aad iyo aad u masayr badan nin alla ninkii dhugta haweenaydiisana wuxuu u qabay in uu wax ka rabo haweenaydiisi nafta ayuu u keenay waa uu diiday xitaa inay waalidkeed u tagto oo waxa uu yiri iyagu haddii ay rabaan ha ku imaadaan qaraabo walaalo iyo macaarif iyaga warkoodaba ha sheegin haweenaydii oo makhabiye noqotay waxay marmar isa soo taagi jirtay darashada guriga si ay naacawda u qaadato dabiicadda quruxda badan iyo xarakada magaaladana u milaysato hase yeeshee markii ninkii arrintaas ogaaday darashadihii guriga ee magaalada xigay oo dhan ayuu malaasay iyadoo hadalkii wadaba asli intay ciil adkaysan weyday tiri eedo xabsina waa ka daran yahay ee taajirnimadiisa isku qabee maxay intay ka dhuumato uga carari weyday asli taariikhdan ka sheekaynayo waa sabankii gabdhaha ragga lagu khasbi jiray markii ay haweenaydii aragtay in kadeedkaas oo dhan uu ninkeedu u samaynayo masayr awgii bay habeentay geesinimo iska dayday la hadashay oo ku tiri walaal anigu jirrabka kuma jiri karo haddii aan wax xun samaynayo aniga iyo shakhsinimadayda bay ku xidhan tahay ee adigu ima dhowri kartid haddii aanan is dhowrin
markii uu cadaadiskii ka deen waayey bay intay gabadhii adeegtada u ahayd la heshiisay nin dhalinyaro ah oo aad u qurux badan habeenada ka mid ah iyadoo la hurudda gurigii soo jiifisay. deedna waxay siisay macaws uu ku jiifsado iyadoo u sheegtay in ay wax yar kadib u imanayso. markii uu weydiiyey in ay cid kale guriga joogto waxay ka dhaadhicisay inuu gurigu cidlo yahay. allah eedo ninkeedii muxuu sameeyey sooma uu arag inuu arko waabay ugu talo gashay. marka ay wiilkii sidaa u seexisay isla qolkii ninkeedu hurday bay intay ninkeedii kicisay ku tidhi waryaa toos waxaan kuu sheegayaa anigu haddii aanan isdhowrin ima dhowri kartid. guriga waxa inala hurda nin aan soo gashay haddii aan xumaato rabana intaan sameeyo baadan ogaateen. waxaan kuu toosiyey in aan ku tuso in aan ahay qof damiir leh oo aan isu quurin macsi iyo waxa maskaxdaada ka qaylinaya. maalintaa kadib taajirkii masayrka badnaa wuxuu xaqiiqsaday in qofkaan isdhowrin cidna aanay ilaalin karin. wuxuuna habeenkaas wixii ka dambeeyey haweenaydiisii u oggolaaday inay cidahoodii soo salaanto suuqana ka soo adeegato. isla markaana wuxuu amar ku siiyey adeegayaashiisii in aanay mar dambe gaar ka qaban haweenaydiisa. asli iyo faadumo waxay isku waafaqeen in asli ka hadho ayax. asli gurigeedii bay dib ugu noqotay waxayna markii ay kulmeen ayax u sheegtay in ay ka soo dhammaatay in labadoodu kala tagaan iyadoo sababtu noqonayso masayrka ayax awgiis. ayax go'aankaasli aad buu uga anfariiray wuxuuna isku dayay in asli uu qanciyo hase yeeshee ugu dambaystii arrin waxay isugu soo biyashubatay in ayax iyo asli kala hadhaan. waxaynu soo galnay qaybtii lixaad ee dhiganaheena. dhiganahan waxaa qoray Dr. Cabdillaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag. cutubkani waxaa ku bilaabmaya habeenkii ay ayax kala hadheen asli ma seexan oo dhiiggii baa dusheeda ka yeedhay. waxay intaa ku fakaraysay sababaha ninkay barataaba uga xumaado iyo sababta uu nasiibkeedu u haleelsiin waayey ninka ay niyadda ka jeceshahay. waxay kale ku fakaraysay aniga waxaan oo dhan isugu wacan maxaan hadba nin u raacaya maalintaan iska shaqaysto rag iyo mushaakilkiisba iska daayo. isla markaa fikrado kale oo isburinaya ayaa maskaxdeeda ku soo dhacayay oo ahaa in haddaanay guursan nin xalaal ah mujtamacii u haysanayo in ay weli tahay qof xun. asli aroortii bay iyadoo isku buuqsan indhaha iskalisay waxayna ku riyootay iyadoo inta la aroosay xafladeedii ay ka soo qayb galeen hooyadeed Cambaro iyo aabaheed Awjaamac arooskaana lagu dhigay gurigii reer Awjaamac. farxad darteed bay asli la salashay markii hurdadii ay ka kacdayna intay fadhiisatay ayay tiri alla wanaagsanaan lahayda riyadan oo dhab noqota. waxay haddana raacisay iyadoo weli yaaban oo miyaanay dhab noqon karin dunida waxaan suuragal ahayn lama aragin. sidaa darteed waa inaan ku dadaalaa sidii aan riyadayda caawa u dhabayn lahaa. asli waxay darsaysay sifaalihii ay suuragal u noqon lahayd in iyada iyo waalidkeed heshiiyaan. waxay talada rogrogtaba waxay arrini ku rafataba waxay go'aan ku gaadhay in waalidkeed warqad ay u dirto. warqad iyo qalin bay soo qaadatay waxayna bilowday inay waalidkeed u qorto hadalladan. hooyo iyo aabba ha gaadho kuwii ifka waxa ku nool aan ugu jeclaa kuwii sababta u ahaa tiritaankayga iyo noloshayda. hooyo iyo aabbe weli maan iloobin weligayna hilmaami maayo dhibtii aad iga soo marteen iyo sidii aad igu hiil iyo tacab beesheen iyo hawshii adkayd ee aad iga soo marteen. Awjaamac waan naxay oo jirkayga saaqday markaan maqlay erayada asli soo qortay. haweeney baa laga sheegay calool jilicsana carruurtayda aabahood naama asli baad u beer dubaaxaysaa oo weli gacalo ka haysa. allah Awjaamac qalbi adakida walaalo waxay aniga ila tahay inaan damino oo ka tanaasulno colaadii aynu asli u hayni waayo dambigii ay gashay ilmanimo ayaa u geysay. maantana waad la socotaa in asli noqotay qof dhowrsoon oo eeda miidhan ah mustaqbalkeediina hagaajisay. mana aha markii ugu horeysay ee aan asli xaalkeeda
ka wada hadalno oo aad nagu gacan saydho curadkaagii Cali Amuur xanaaq baad ku kala tagteen asli darteed aslina aniga ra'yigayga waxaan qabaa inaan cafinno oo u ducayno waagii cusbitaalka aan galay haddii daawada aanay la soo gaari lahayn sidaan maanta ahaan lahaa alla og nacam baro reerka ma aniga u taliya mise adiga waxay ku leedahay asli colaada aan u hayno aan damino la hawl yaraa cafinta asli orod oo cafi haddii aad adigu doonaysid ikhtiyaar baad leedahay hase yeeshee anugu nin qowl leh baan ahay hal mar baan hadal iga dhacay aw jaamac inkastoo hadalkiisii hore uu in yar ka soo dabacay misana weli uma bislayn in asli uu saamaxo aw jaamac ra'yigeedii markuu ku gacan sayray waxay Cambaro aaday gurigii Faadumo waxayna u sheegtay warqadii ay asli ka heshay Cambaro waxay uga mahadnaqday Faadumo sidii wacnayd ee asli u xanaanaysay waqtigii ay tijaabada xun ku jirtay waxayna u sheegtay in ay walwal iyo damqasho waalidnimo ku abuurtay warqadii ay asli ka heshay waxayna tiri Faadumo iga gaarsii asli in aanan weligay habaarin imikana cafis iyo musaamax ay iga tahay waan jeclaan lahaa in ay guriga ku soo noqoto haddii wadaadka waalan ee aw jaamac aanan ka cabsanayn Faadumo waqti ma lumin ee isla habeenkii bay asli u tagtay waxayna ugu bashaaraysay mowqifkii hooyadeed kaasoo asli aad ugu faraxday asli waxay markii hore niyadda gashatay in habaar waalid ay qabto sidaa darteedna ay dhib badan tahay in ay tanaado Faadumo iyo aslina waxaa dhex maray hadalladan asli imka dadka dhan ayaa ka marakacay inaad qof iska adag tahay adiga iyo saaxiibta Canab farqi weyn baa idin dhaxeeya Canab way isdhiibtay markii cunug aan aabe lahayn ay dhashay adiguse nasiib wanaag waxaad yeelatay caqli waxaanad ku dadaashay sidii mustaqbalkaaga iyo kan wiilkaaga aad u dhisi lahayd eedo Faadumo aad baad iga farxisay caawa waxaana iga dhacay culays weyn waayo haddii mar hooyaday ii ducaysay waxaan shaki lahayn in khayr degdeg ah aan la kulmayo awal runtiyeedo waxaan go'aan ku gaaray in intaan iska shaqaysto nin oo dhanna aan faraha ka qaado iminkase waxaan filayaa inaan heli doono mid ii qalma asli waxay u sheegtay Faadumo in wiilkeedii Maxamed Yare maalmahan uu jirana waxayna ka dalbatay maadaama ay cusbitaalka ka shaqayso in ay daawooyin u keento asli iyo Faadumo oo Maxamed Yare oo hurdo dul taagan ayaa waxa guriga u soo gashay islaan ay asli darisiin oo magaceeda la yiraahdo Xaadsan waxayna tiri asli sidee baa wiilkii ku noqday waa kii galabtii ay xumaddu haysayeen eedo Xaadsan mahadsanid imika waa sidiisii waxaan si doonayaa inaan berrito aan cusbitaalka geeyo haddii Ilaahay yiraahdo asli maad wiilka u geysid wadaadkan agteena degan ee la yiraahdo aw buulo jeer waxa la arkaa inuu cunugu dalqa iyo dhijis qabee Faadumo oo hadalkaas dhageysanaysa ayaa waxay tiri waxaas oo kale ayaad ilmaha yaryarka ah ku qarritaan cunugu inta jiradu ku cusub tahay cusbitaalka ma geysaan ee waxa lacagtiina dhamaysta dad turufatorayaal ah oo khaa'imiin ah waxaana carruurta cusbitaalada geysaan iyagoo maliil ah oo aan waxba laga qaban karin asli baa hadalkii qaadatay oo tiri Faadumo waa runta oo aw buulla jaraha ay Xaadsan sheegayso hadda ka hor ayaan arkay dhowr ilmood oo xaafadda ah oo loo geeyay oo intuu lacag ka qaatay waxba ka sancayn waayay aniguse wiilkayga meel aan cusbitaal ahayn oo aan geynayaa ma jirto dhajiska ay sheegayso Xaadsanna anigu maba ictiraafsanin asli wiilkeedii subaxnimadii bay cusbitaalka geysay waxaana lagu soo sheegay in uu qabo gooriyaan markii ay daawooyinkii loo soo dhigay ay siisayna waa uu raystay asli laba qof ayaa mar walba maskaxdeeda ku jiray waa Canab iyo Xarbi oo ay kala hadheen waxa ku dhacay khalkhal uuna saldhigi waayay shaqadii ayuu iskaga tagay si uu geerashka aabihiis jirda dhagax uga shaqeeyo hase yeeshee wuxuu noqday nin mahsan oo had iyo jeer dhulka ku foorara oo fakar dilooday jirda dhagax waa gartay meesha laga hayo wiilkiisa oo uu weli asli niyadda ku hayo sidaa darteed intuu u yeeray ayuu si deganaansho ah ku waraystay Xarbiyow cilaamato oo inaabtida ahayd waad furtay annaga marnaba na eersan maysid laga bilaabo maanta waxaan kuu fasaxayaa
gabadha adigu aad maskaxdaada ka maagtid inaad keensatid hase yeeshee waxaan kugula dardaarmayaa inaad iska ilaalisid intaadan doorashada samayn in asli oo kale aadan ku sirmin aabe mahadsanid anigu doorasho dambe geli maayo hal mar baan wax doortay markiina waad iga hor istaagtay shirda dhagax waa fahmay in wiilkiisu u jeedo in asli cid aan ahayn uusan doonayn markaasuu intuu aad u xanaaqay ku yidhi xarbi anigu sidaa tahay garan maayo waxaa kuu haray maanta ee keliya waxa weeye inaad tusbax dheer oo 2 dhudhun ah qaadatid deetu ku wardideed asli xarbi waxa uu go'aan ku gaadhay inuu hawl oo dhan iska dhaafo oo galo jaamacadda si waxbarasho uu naftiisa ugu maaweeliyo sidaa darteed wuxuu qortay arji uu ku weydiisanayo in waxbarasho jaamacadeed loo ogolaado waxaa lagu qoray kulliyadda waxbarashada ee Lafoole hase yeeshee wax yar kadib wuxuu codsaday in kulliyadda beeraha loo wareejiyo waayo aad wuxuu u jeclaa inuu ku takhasuso aqoonta beeraha xarbi waa loo ogolaaday bedelkii wuxuuna rasmi ahaan u bilaabay waxbarashadii kulliyadda beeraha asli oo gurigeedii joogta ayaa waxa casarkii u timid Canab oo xaajiyadii hooyadeed ahayd ka soo noqotay Sacuudiga iyada iyo Canabna dagaal xumi dhex maray waxayna talo ku dhamaatay in la kala miidaamiyo oo la kala qariyo intaas kadib maxaa dhahay la socda wade qaybteena xigta qaybteena maanta sheekadana waxaa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag annagoo bahda dhigaal ahayna